واتاي صاحب يال كسود هذا عشر كان عصب ما انتو ودير دينو زارين هو بين توكسيا بين دورسيا ايانكو هالي دونا لو بلا صاحبك شكاستان دانا مركز وحليه هاي today ما انت I want وحن دونية to talk about إن كهذا one of the worst custom ميت كميد عادوينك أوحن one of the worst custom ميت كميد عادوينك أوحن in Somalia دلك Somalia in Somalia Somalia عادوينك أوحن ميت كميد عادوينكاس أنا ربع إن كهذا so درتت how does it seem to you sidee ayay kugula muuqataa how does it seem to you sidee ayay kugula muuqataa miiska kale ku jawaab wuxuu leeyahay I cannot oppose kama hor iman karo anigu I cannot oppose kama hor iman karo kama soo horjeesan karo your notion fikirkaaga kama soo horjeesan karo kama hor iman karo soo sidaa darteed what is that custom waa maxay caadadaas What is that custom? waa maxay caadadaasi saaxiibkiisa wuxuu ugu jawaabay it is begging caadadaas waa dabarsiga tuugsiga it is begging waa dabarsiga ama tuugsiga so sidaa darteed first ugu horreynba what is begging waa maxay tuugsi what is begging tuugsi maxaa la yidhaahdaa saaxiibkiisa wuxuu ugu jawaabay markaa begging tuugsigu is to ask people waa in dadka la weydiistaa money lacag food cunto and other things iyo sheeye kaloo lamid ah marka sheeye kaleeto oo kasii badan in la weydiisto ahaa way saaxiibkiisa wuxuu leeyahay markaa su'aal kale weydiinaa what kind of beggars tuugsada noocyeba aadeer ayaa jira dabarsadayaasha iyo tuugsadayaasha noocyada ay kala yihiin ii sheeg what kind of beggars noocyada tuugsadayaasha aadeer maxay kala yihiin noocyadoodu waa maxay saaxiibkiisa wuxuu leeyahay markaa some are cripple qaarkood horta waa curyaamiin waa loo ogolyahay kuwa inay tuugsadaan curyaan waaye wax u shaqeey ma lahan that's allowed waa loo ogolyahay midaas while halka others kuwa kalena are blind ay yihiin iyaguna indhoole ay yihiin iyaguna waa suurtagal waa loo ogolaan karaa inay tuugsadaan oo ama orphans agoomo waaye qaarkood oo aabi iyo waxa ma lahan waa loo ogolaan karaa inay tuugsadaan and some qaarkoodna can be aged da ayay noqon karaanoo way duqoobi karaan da'daa ka daba timid ma shaqayn karayaan maybe waa loo ogolayaa iyaguna or ama helpless wax caawimaad ah oo caawinaya ma laha yani caruuray dhaleen oo u shaqeynaya markaa ma wajir ujeedada caruurta loo dhalaabo waxay tahay in hadhow marka qofka da uu noqdo uu ku baxsado isagana sida markuu yaraa loo soo barbaari isla sidaas lamid ah isagana inuu barbaariyo to be continued wuu sii socon doonaa part 2 aan noo dhiman don't miss part 2 please thank you and waxaan kaa rabaa marka qaybta commentiga ah inaad igu sheegto qofka caafimaadka qaba ma tugsan karaa haa wuu tugsan karaa maya ma tugsan karaa qaybta faalada noogu soo qor mahadsanid fikirkaaga waa inoo muhiim fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkuna like saar sidaas lamid ah haddii aad ku cusubtaa janaalkuna subscribe saar waxaan saarana wadadan ku tagi lahayn 700 subscribers mahadsanid